dhulka oduga badankiis bulshadii ku ababtay duqoy horay u harisha urur loo asaase aqbal baanu leenahay aqbal baanu leenahay dhulka oduga badankiis bulshadii ku ababtay duqoy horay u harisha urur loo asaase aqbal baanu leenahay aqbal baanu leenahay urur haybad qaran iyo sharaf naga istaahila iftiinkaagu gul noqoy iftiinkaagu gul noqoy urur haybad qaran iyo sharaf naga istaahila mideeya u koowe udub dhexaadka nabadow iftiinkaagu gul noqoy danta guud ilaasho wadiga dadweynuhu astaantaada doorteen astaantaada doorteen dadaheeya ubado matada daryeelo danta guud ilaasho wadiga dadweynuhu astaantaada doorteen astaantaada doorteen siyaasiyiin awoodo adeega wadankiyo ayaha dambeetana adiga urushe ha afoobin weliga ha afoobin weliga siyaasiyiin awoodo adeega wadankiyo ayaha dambeetana adiga urushe ha afoobin weliga ha afoobin weliga u adeega shacabow afooyinkii dhacay kuwinaga ilaasha adi kugu midoobe ayaankaagu khayr noqoy ayaankaagu khayr noqoy u adeega shacabow afooyinkii dhacay kuwinaga ilaasha adi kugu midoobe ayaankaagu khayr noqoy ayaankaagu khayr noqoy dadaheeya ubado matada daryeelo danta guud ilaasho wadiga dadweynuhu astaantaada doorteen astaantaada doorteen dadaheeya ubado matada daryeelo danta guud ilaasho
wadiga dadweynuhu astaantaada doorteen astaantaada doorteen urur siyaasadeed ka mideeya waa urur siyaasadeed u taagan ilaalinta iyo ku dhaqanka mabaadi'da iyo qiyamka ummadda Soomaaliyeed kuna shaqeynaya nidaamka wada tashiga ah wuxuuna ka qayb qaadanayaa geedi socodka hirgelinta nidaamka xisbiyada badan ee Puntland haddaba urur siyaasadeed ka mideeya oo ay ku bahoobeen rag mug iyo miisaan ku dhaxlay siyaasadda Soomaaliya iyo tan Puntlandba ayaa waxaa la aasaasay 17kii Maarch ee sanadkii 2020 iyadoo waqtigaasi ay guddiga doorashooyinka meel gaarka ay siiyeen shahaadada ururnimo asaasayaasha ururka ayaa bilaabay inay furaan xafiisyo kala duwan oo ururku ku yeelanayo dhammaan degmooyinka Puntland iyaga oo safaro kala duwan ku bixiyay degmooyinka shacabkana wacyigelin iyo fahamsiin nidaamka dimuqraadiga u sameeyay waxaana xafiisyada laga furay inta badan deegaanada Puntland sidoo kale asaasayaasha ayaa bilaabay waqtigaasi ka qayb qaadashada arrimaha bulshada iyo dhiirigelinta dhalinyarada iyagoona u qabtay dhalinyarada kubadda cagta tartamo kala duwan oo koobab kubadda cagta ah iyadoona ururku ugu deeqay naadi walba agabka sidoo kalena kooxaha kaalinta koobaad galay abaalmarino kala duwan la siiyay kadib markii uu soo gabagaboobay furitaankii xafiisyada iyo wacyigelintii shacabka ee ay xubnaha aasasayaashu ku kala bixiyeen deegaanada Puntland ayaa haddaba dhamaadkii bishii June waxa ay guddiga doorashada Puntland bilaabeen inay booqdaan xafiisyada ururku ka furtay iyaga oo ka bilaabay xafiiska xarunta dhexe ee ururku ku leeyahay magaalada Garowe kadibna booqday degmooyinka kale sida Gaalkacyo oo mudug ah iyo waliba Qardho oo Karkaar ah iyo Boosaaso oo bari ah iyo waliba deegaano kale oo sida Booc ama Buuhoodle Baran iyo deegaano kale oo ka tirsan degmooyinka Puntland dhinaca kale urur siyaasadeed ka mideeya oo ka jawaabaya gurmadkii Qardho ee fatahaadii ayaa ka qayb qaatay gurmad isagoo agab kala duwan ugu deeqay sida raashin biyo iyo lacag kaasha oo guddiga gurmadka ku wareejiyay 18 iyo 19 July ee sanadkii 2020 ayaa waxaa xarunta jaamacadda Bariga Afrika lagu qabtay shirweynihii urur siyaasadeed ka mideeya kaasi oo lagu dooranayay guddiga fulinta ururka iyadoona sidoo kale lagu ansixiyay xeerkii ururka iyo golaha dhexe waxaana loo doortay gudoomiyaha urur siyaasadeed ka mideeya Daahir Xaaji Khaliif halka ku xigeenka koobaadna loo doortay Najax Maxamuud Cali halka ku xigeenka labaadna loo doortay Cabdalla Sheekh xogayaha guud ee ururka ayaa loo doortay Abshir Cumar Huruuse intaasi kadib waxaa xarumaha kala duwan ee urur siyaasadeed ka mideeya ka bilowday isdiiwaangelinta shacabka qaybihiisa kala duwan oo ay dhalinyarada iyo haweenku u badnaayeen iyadoo hawlaha shaqo ee ururku ay si habsami leh uga socdeen xarumaha kala duwan ee urur siyaasadeed ka mideeya kadib markii guddiga doorashooyinka Puntland ay ku dhawaaqeen in la qabanayo diiwaangelinta degmooyinka loo asteeyay inay ka dhacdo doorashada hordhaca ee Ufayn iyo Qardho iyo waliba Ayl ayaa madaxda urur siyaasadeed ka mideeya waxa ay safar mug iyo miisaan la ku tageen dhammaan deegaanada hoos yimaada degmada Ufayn khaasatan kuwii loo asteeyay goobaha isdiiwaangelinta waxaana safaradaasi hogaaminayay mas'uuliyiinta ugu sareysa ee heer degmo heer gobol oo isugu jiray guddiga fulinta xubnaha golaha dhexe iyo maamulkaba gudoomiyaha urur siyaasadeedka iyo waliba ku xigeenkiisa xogayaha guud ayaa hogaaminayay safarkaasi iyadoo shacabka ku dhaqan degmada Ufayn ay si weyn u soo dhaweeyeen madaxda urur siyaasadeed ka mideeya iyadoo halkaasi kulan soo dhaweyn loogu sameeyay madaxda urur siyaasadeed ka mideeya ayaa shacabka waxa ay ka dhageysteen baahiyaha gaarka ah ee ka jira deegaanada gudoomiyaha urur siyaasadeed ka mideeya Daahir Xaaji Khaliif ayaa halkaasi kaga dhawaaqay inuu ugu deeqay ka qayb qaadashada arrimaha bulshada ee degmada Ufayn $15,000 oo ururka mideeya ugu deeqay su'aalihi ayna soo weydiinayeen saaxiibadayada reer Ufayn waxaanu kaga jawaabaynaa lacag $15,000 ah oo aanu ugu talagalnay hay'ad degdegina biyaha iyo caafimaadka safarkaasi kadib ayaa madaxda urur siyaasadeed ka mideeya waxa ay sidoo kale safar mug iyo miisaan la ay ku tageen dhammaan deegaanada hoos yimaada degmada Qardho khaasatan kuwii loo asteeyay goobaha isdiiwaangelinta waxaana safaradaasi hogaaminayay mas'uuliyiinta ugu sareysa oo isugu jiray guddiga fulinta xubnaha golaha dhexe maamulka heer gobol qaar ka mid ah howlwadeenada xafiiska degmada Qardho ee ururka mideeya ujeedka safarka mas'uuliyiinta kala duwan ayaa daarnaa wacyigelinta bulshada u kuurgalida baahiyaha deegaanka iyo isku xirka bulshada
xafiiska guud ee degmada Qardho waxa uu dhammaan deegaanadaasi ka yeeyay wakiilo sidoo kalena waxa uu qalab sports ku doonsiyay 20 kooxood xafiiskuna waxa uu qabtay kulamo isugu jira mahadcelin ka qayb qaadasho munaasabada muhiim u ah ururka mideeye guud ahaan deegaanada loo kuurgaray lana buuqday waxay kala haayeen yakayaka libow iyo shire oo dhammaan si weyn loogu soo dhaweeyay cambaar sare xudun reer Carmo guud caad garihel dhaxan karin qalwo jidad libaxar dhaxan busur iyo waliba higlo safarkaasi kadib ayaa madaxda urur siyaasadeed kamid waxa ay safar kale ku tageen dhammaan deegaanada hoos yimaada degmada Ayl oo kamid ah goobaha loo asteeyay inay ka dhacaan khaasatan kuwii loo asteeyay goobaha isdiiwaangelinta waxaana safaradaasi hogaaminayay gudoomiyaha urur siyaasadeed kamid mudana daahir xaaji khaliif faarax xogayaha guud ee ururka Abshir Umar Huruuse xubnaha gudiga fulinta xubnaha golaha dhexe garabka dhalinyarada iyo howlwadeena ka socday xafiiska dhexe ururka iyo waliba sidoo kale howlwadeennada degmada Ayl meelaha ay booqdeen mas'uuliyiinta waxa kamid ahaa degmada Ayl qarxis biyacade xasbahalle dhigalle diilin maaxato cambaare dhanaane iyo waliba aftagweyne dhammaan deegaanadaasi ay booqdeen mas'uuliyiinta waxa lagu soo dhaweeyay si heer sare ah waxaana soo dhaweeyay taageerayaasha ururka mideeye ee deegaanadaasi mas'uuliyiinta ururka deegaan kasto ay booqdeen waxa ay ka sinaayeen wacyigelinta waxaana ay booqdeen mas'uuliyiinta dhammaan seejooyinka ay ka socotay isdiiwaangelintu iyagoo shacabkana ku boorinayay in ay ka qayb qaataan markii ay soo dhamaatay arrimahaasi ayaa waxa ka dhacday kulan mahadcelin ah magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar iyadoo taageerayaasha iyo waliba howlwadeennada xafiiska mideeye shahaado sharaf lagu gudoonsiyay waxaana ka qayb galay xafladaasi oo aad u ballaarnayd gudoomiye ku-xigeenka labaad ee urur siyaasadeedka mideeye Najax Maxamuud xogayaha guud ee urur siyaasadeedka Abshir Umar Huruuse iyo mas'uuliyiin kale oo ka socotay xarunta dhexe iyo waliba howlwadeennada xafiiska degmada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar waxaana halkaasi shahaado sharaf lagu gudoonsiyay howlwadeennadii ka qayb qaatay intii ay socotay diiwaangelintu iyo waliba howlihii shaqo ee ka socday xafiiska degmada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar